السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مر لبات مر سدحات مر أفراد مر شنات انتبهوا ولكن إذن هاد يفتح سعودو هذا ما لوف لفاميلي ما لوف لأصحاب تيدا ملو بادون كجوكتان ووليلكي انتركي كارون ما يعوال بدل بعد كده بيمو ولكن إنه إذن وضع تركي كارون ما شاء الله تركي كارون وكايا ماركيسين هذا يكون تعالى إنك جيفو inkii saxdaasi isdiba dhalma lii jirno aday ku taala marka maasha Allah tabaaraka Allah asxaabta intii la soo xiriirtay kulay qof walba oo la soo xiriiray insha Allah inta ka gaaro waa la soo hadlay qofkii aan wali soo jawaabin insha Allah wuu soo jawaabaya macnaheedu maaha in ay idinka aamusanahay bas laakiin dadkii soo weydiinaya markaan zaid u batay marka mar walba soo weydiisaan insha Allah waxaan ku dadaalayaa sida ugu dhaqsiyaha badan qof walba inaan u soo jawaabo waxaan kaloo idinka codsanayaa insha Allah commentiga markaa igu soo codsatid inta badan teleefankeygan meeshuu ku qoran yahay whatsappka inta badan waa arkayaa inta badan marka whatsappka insha Allah igu soo qoro fariimiina si aan isla markaa idinkaga soo jawaabo insha Allah haddii la yiraahdo tiktok inta badan isla markii hore marka fiiriya cabar kadib inaan fiiriya laga yaabaa ama saacado kadib laakiin whatsappka isla markaas wuu soo dhacaa hore ka arkayaa marka tiktok markaan furo kaliya wuu dhahayaa qof hebel fariin kuu soo diray markaas arkaya inta koreys markaa waa mahadsantihiin kulay dambaroolka qof walba siduu ka aaminsan yahay isaga taala saa hore kugu sheegay ani laakiin waa kana ku haystaa waana ku haysan doonaa insha Allah resultigeedana dambaroolka iyo faa'iidada uu leeyahay waxaan is wareysanaynaa tinta sidaan rabo markay u soo laabato markaasaan is wareysanaynaa qofka dambaroolka isticmaalay sidee tahay qofka bilaa dambaroolka isticmaalay siduu yahay markaasaan wax walba idin ogeysiinaa insha Allah haddii la yiraahdo marka tibsigeyga ani weli waxa waaye haddaaba heli kartid inaad dambarool isticmaashid waxba ha ka cabsanin haddaadkaas yaro markii la marinayo daadanayo it means wuu shaqeeyey macnaheedana waxay tahay inuu weli wadooyinka waxawaaye meelihii xirxirnayo inuu si fiican u furayo oo weli wasakh saaran tahay wasakhda uu ka qaadayo hadda marka midkan aan hadda haysto waa khafiif zaa'ida isaga iyo kan isku mid maaha maanta kan isagaa ka khafiifsan xogaa jiirjiirdaas uu leeyahay kan caagu ka samaysan yahay kan laakiin waa alwaax wuxuu ka samaysan yahay iyo plastic gooma yariis oo khafiif ah maanta marka waa kaaya marka hore kana xanuun badan ii keenaynin isagaa ku buskicinaa isagaa si fiican isagaa marka hore maasha Allah waayo lafta haddaan saas ugu dhajiyo xataa kana waxba saas ma dareemayo ujeedaa haddaan lafta zaa'id ugu dhajiyo saas ma dareemayo waa ku dhajinayo hadda ujeedaa dhab waayo haddana saas ay tahay xanuun yaroo meel dheeraan dareemayo laakiin kan dhab haddaan ku siiyo mudacyada si fiican madaxa u galayo mudacyadiis kan laakiin maasha Allah mudacyadiis wax yar wuu ka yaryar yahay marka maasha Allah laakiin size-ka waa isku size 0.5 iyo 0.5 waay taasaan ilaa hadda fahmi waane insha Allah we will see insha Allah coming soon waxa waaye resultigii ugu macquulsanaa ininka arkaysiin weli especially meeshaan oo marka hore jirkaygan u ekeed oo hadda madowgeeda si fiican u arkaysiin madowgaa arkaysiin maaha kaliya jirka inuu madow noqday laakiin wax fiican ka soo baxay meesha maasha Allah waa loo bagay fanta dambaroolkana faa'iidadiisu ugu weyn waxay tahay idin sheegay in tinti duleeladii loogu talagalay madaxa uu lahaa jiro originalki uu soo celinayo aysan madaxaaga naqanaynin sida turkiga camal dadka tagay oo teelteelka maaragtay meel tin la suro meel ebre meel tin la suro meel ebre kan laakiin wuxuu soo wada celinayaa tintii oo shuk ah ano meel walbo duleel ahayd si loogu talagalay u furayo marka waa kaya walaalkay qofkii ka faa'iideysanayo jecel insha Allah diyaara idin nahay waa idinka caawinaynaa kulay ani kaligeed idin caawinaa ani kaligeed dadka caawiya ma dhahay walaalo badan oo Soomaaliyeed buuxo oo dadka caawiyaan kulay qof walba wuxuu dadka ku caawiyana waa wuxuu asaga ka arkay iyo resultiga oo ka helaba marka damage ma leedahay waxyaabaha ee Soomaalida qaarkood ee iska daba wadaan oo ah baashan difeetay geysan raganimada wax u dhintaa iyo bala sheekh suuqeedka kulay hadda
maanta cashirkeyga toddobaad waaye waa iyada iyo dambaroolka iyo saliidda aan uga hadlayo laakiin insha allah haddii ilaa yirahdo after 1 week waxaa bilaabayaa dambaroolka dhib ma u geysan karaa raganimadaada iyo saliiddan mise wax dhiba uma lahan taasna iyadan insha allah cashiraan kasoo diyaarina haddii ilaahay nafaqo nooga dhigo marka walaalay aan jeclahay maasha allah waa mahadsantihiin waxaan si xushmad leh idinkaga mahad celinayaa sida qiimaha badan la aad ila soo xiriirtaan youtube-keyga maasha allah usoo booqataan maasha allah tabaaraka allah tiktok-geyga maasha allah waad maasha allah si fiican ila socotiin marka insha allah biidin illah waxaan idinka codsanaya kulley ha iga bakhiilina falowga ha iga bakhiilina inta fiirsanayso videoyadeeda maasha allah tiktok dadku way zaaid u badan yihiin laakiin ma aqaan xoogaa loofka waa laga bakhiiloyaa marka loofkan walaalkiin ha ka bakhiilina maadaama falowga baa isiisay loofkan ii raacay ha iga reebin insha allah intaasaa idinka codsana haddii ilaa yiraahdo maxaa yeelay adi dhiirigelintaada iyo loofkaada iyo falowgaada aa ii samaysid aniga niyadiisa ii tahay waxaans qabanayaan inay wax weyn yihiin adigaa ii muujin karo adigaa madax wax kugu ahay mafahant soo marka adiga haddaa adiga wax iga dhigtidna waxaa naqanaa haddaad adiga waxba iga dhigin waxba ma naqanayo insha allah biidin illah marka waa idinkaga mahad celinayaa all my followerkeyga oo dadka si fiican ila socdo iyo inta hadda kadib ila socod doonta kulligiin sidaa wada dhantihiin insha allah biidin illah salxii waa dhammaadeen sheekadooda mardhow waxawaaye waa lasoo gabagabeynaa insha allah biidin illah haddii ilaa yiraahdo waa mahadsantihiin tintii oo lasoo xiiro jeega xiir qoor xiir lagu soo siiyaa laydin tusaa mardhow haddii ilaahay nafta baaqi nooga dhigo waa idin salaamayaa khayr badan iyo caafimaad aa idiin rajeynaa soo marka waa kaaya walaalkiin jum cadiftaax turki corona loo bixinaa markaan bas waa cadiftaax waxaa waaye janaalka xataa ina magac ka bedelo turki coronka qora iga hisaabo turki coron sa ii qancisa leh maasha allah mafahanta wax badan inaga badbaadisay wallaahi baryahan xataa trainingkeygi iyo jimkeygi wixii waa ka mashquulaysaa madaxaan loogu mashquulay laakiin insha allah hadda kadib labada waa isku wadaa haddii ilaa yiraahdo fitnesskeygiina dib aa ugu laabanaa iyo coachnimadeeda yaa herbal lifekeyga oo kusoo naqanaya iyadana maasha allah turki corona meesheeda laga sii wadaya marka aad baa idinkaga mahad celinayaa sida xushmadda iyo sharafta leh aa mar walba ii dhegeysataan waa idinkaga abaal celinaya waa idinka abaal hayaa insha allah ilaah idin ciseeyo all my asxaabteyda my family waa idin jeclahay meel walba adduunka joogtaan one love asalaamu calaykum waraxmatullah